rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ka sheekeeyey qofka carooda ee markuu carooda caradiisa qabta wuxuu odhanayaa waman kafa qadabuhu satara allahu cawratah ahadka caradiisa reeba oo markuu caroodo aan aarsan ilaah baa ceebtiisa qariya. allah markuu dadka jannada ka sheekaynayey sifaadka lagu yaqaan wuxuu yidhi waalkaadimiina alqayda waalcaafiina cani innaas wallaahu yuxibbu almuxsiniin. dadka khayrka badan waa kuwa caradooda qariya, waa kuwa dadka kale iska cafiya, wax kastaoo loo geysta kuwa alla darti ku saamaxa weeye. allana wuu jecel yahay dadka muxsiniinta ah oo camalka loo diray suga oo wax walba alla darti u sameeya oo addoommada allana wanaajiya. waa sida laga doonayo dadka islaamka ah, ma ahan qofku inuu siduu doono yeelo, diinna ma ahan. rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi isagoo hadalka carada ka sii hadlaya waman kadama qaydan walow sha'a an yamdiyahu amdaa mala'a allahu qalbahu ridan yowma alqiyaama. axadkii caradiisa qariya haddii uu doono waxa uu ka carooda inuu ka aarsado fuliyana fuli kara, ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaamada wuxuu ka buuxiyaa rido iyo aaminaansha intaba. wuxuu ku raalli noqdaa la siiyaa. waa carooday inuusan caroon buu dadka u muujiyey. hadduu doono waxa uu ka carooday waa ka aarsan karaa, waa ka qaban karaa, laakiin alla darti iyo muslimiinta wanaaji aawadeed ayuu caradiisa u qariyey. qalbigiisa riddo allah qiyaamada laga buuxiyaa buu nabigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. marka qofkii doonaya ilaahay wuxuu ku raalli noqdo inuu siiyo, oo waxa qofka muslimka raalli ku noqdaa waa janno alle la seexiyo, caradiisa ma qariyo. sifaadka muslimiinta lagu ammaano kuwa ugu qiimaha badan waxaa ka mid ah inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dadka waxaa ugu qiimo badan oo ugu diracsan alladii yamliku nafsahu cinda alqadab, ka naftiisa hanta markuu caroodo oo aan caytamin, oo aan dagaalamin, oo aan dadka aflagaadayn, oo aan xadda iyo xumaan caloosha ku qaadin. kaas ayaa dadka ugu wanaag badan. marka laga sheekaynayo bini aadamka dabeecadihiisa waxaa loo kala qaadaa 4. waxaa la yidhaha dadka waxaa ugu khayr badan qofka aan caroonin ciyoon, hadduu caroodana si degdega raalli ku noqdaa. waxaana ugu khayr daran baa la yidhaha dadka qofka degdeg ku carooda, hadduu caroodana aan raalli noqon. waxaan ammaan iyo cay midna gacanta ku hayn baa la yidhaha qofka aan caroon oo aan caroonayn weligii, hadday dhacdo inuu caroodana aan raalli noqonaynin. ammaan ma lahan qofkaaso, wixiisu waa isu dhaceen. kaasoo kale waxaa ah oo qofka afaraad ah qofka degdeg ku carooda, hadduu caroodana degdeg ku raalli noqonaya. wax aan sagaara ka cararin buu ka caroonaya, haddana isla markii waa soo laabanaya. isaguna wax ammaan la yidhaha ma lahan. wax cay la yidhaha islaamta hadday xijaabka dhigto waajib waxaa in xijaabka loo sheego, sida ilaahay oo qur-aankiisa uu ku yidhi quu anfusakum waahliikum naara, naarta ka badbaadiya naftiina iyo dadkiina. ninka waxaa waajibka inuu islaanta xijaabka u sheego. hadday xijaabka qaada diiddo oy dib ugu laaba diiddo waanada ay aqbali weyso, waajib ayay ku tahay islaanta inuu ka bari noqdo ninkaas. maxaa yeele waxuu noqonayaa dayuus, haweentiisii ay qaawanaan ku hoos joogto oo sidaa ku haysta. dayuusnimadana waatan ka ogaan xaaladeeda. nin kasta oo naagtiisa qaawanaan ku haysta oo diinta ilaahay inta ka dhaadhiciyey ka dhaadhici diiday, ama inta ka dhaadhiciyey ay qaada kari diiday oo ay diiday iska soo taagtay, ninkaasu dayuus buu noqonayaa. u sheeg qofka intaad wax uga sheegay sida wax ka ogaanayo. nacam, waxyaalaha loogu dulqaataa u dulqaado. maanta waani berri canaano, saa dama bari, saasi ka soo mar. way isi soo taagta qofkii. haddaad sidaa ku qabtid oo aad tidhaha ilma ayaa meesha jooga oo ya ogaaw inaad dayuus tahay. ahadka dayuuskaan inuusan jannada alle meel ku lahayn siduu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam. marka inanta hadday xijaabka dhigto waa in xijaabka dib loogu celiyaa. haddii ay ku laaban weysana ayada iyo ninku waa inay ku kala socdaan. shareecadu barya ma lahan. waxa qofka alla ku waajibiyey waa in loo sheegaa oo ku socdaa. hadduu qaadan waayana waa in lagu kala tagaa. ma ahan waxyaalaha la isugu dulqaadan kari maa jira. gabadha waxaa laga reebi waayey nimanka ajaanibtaa inay mukhaalada ku samaydo. waxaa laga reebi waayey safar xaaraana inay gasho. waxaa laga reebi waayey inay qaawanaan suuqa ku marto. waxaa laga reebi waayey ninkay doonto inay gacanteeda ku salaanto. waxaa laga reebi waayey meel kasta oo muusiq lagu cayaarayo laga dheelayo kasi ka jiro inay tagto. inanta intaa laga reebi waayo haween la haysan kara maahan. mana ma noqone ninka sidaa ku haysaan asagan diin meesha ku haynin. rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala. sideeda dhanna ninka muslimka oo diinta ilaahay ay ka run tahay in mexar u qabtaaba waa mamnuuc. gabar caariyada oo qaawan hadduu diin lahaa lahayba maanta horeba ma maxarsan karaba. gabar caariyaha oo cadaysina mid hal malay la moodo see maar kugu qaban karaya. mid dhex kale dhulka soo jidaya la helayahay ma dhici karto. haye
وحضيتين أركز رتي حضيتين وقتها مركز كل هذا وين عيارتي ما هي هي اللي يجود عيسى هي واحد يجود عيسى مياه أي ربك سبحانه وتعالى أحد ورب ربك كحيسو نيك يا هوانت النعاوي قبك وين ودين تعالى وقوليه وين ودين تعالى كسرة وقدم الكلام وقالك وين وكلامته بني آدم وخدام خير الخدائين التوابين ويعذر ذاك وأوسك وحتى ربك كعبده قبك وين وهكذا أرنتي ويتبدل وإذا سوى خلاص صار ما وحاول أنت ميالي فالتقي في الخير والقاء وحسانك كبرين والنبي أدلة صحيحة وقصة وقفك أدوك الله وإنه بيسكوك بوجيه أو ما يرتو أمام ربي لقوك بوي أو دوشة اسكتارة صنك حركة دي مايان هذيك بيها حبي لكن والنا يرنكرتا صنك أنا دبات السوق قاري ميسو صنك مركا أكون جرتي دبات السوق قاري ميسو إنا عنديها اسكجرتي إنا دقاها قدو كايدتي إنا البرفون استعماجي انت صوتا صنك دبات ما قيتان وحدودك داروه السن انت وحكم الصنك إنا خلق القلينية وح الله وحي صنك أو سن كبرين فعلنا صنفرمنا وح الله وحي صنك كبرين سغينوين فربي الدبلة عاي يعني بين سغينوين وانصمنا دقاء كبير ايو علق ايو الكاو حلقة ساري وانصمنا اي ما انت بنا وحقوق قضية قراء كده تحاني بين يوحن شرعي وقلين اي xaaskayga ku iraahdo gurigaaga joog wixii aad u baahatid anaa kuu samaynayee oo ay diiddo maxaan ku samaynayaa xaaskayga xaasku hadduu sidaa yeelo waxaad ku samaynaysaa siduu alla ku samey yidhi subxaanahu wa tacaala waxuu rabbi yidhi wain khiftum nushuusahunna faciduuhunna dumarka haddaad naajisnimadooda ka baqataan ood aragtaan inaysan idin war maqlaynin waaniya ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala haddaad aragtaan inaysan idin war maqlaynin waaniya wax u sheega wacdiga iyo waciidka soo arooray iyo sida inay kuu adeecdo ay waajib ugu tahay u sheeg taas ayaa lagaa doonayaa waanadaa kuwad faxiduuhunna markaad waanada ku wadid oo ay waanada kaa qaada diiddo wuxuu rabbi qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala wahjuruhunna fi lmadaajic aqalka dhinac ka seexo oo waxaad tira orodoo sariirta noo kala durji oo joodarigaaga dhinacaa geyso sidaa ku ilaah in go' dambe laysla huda iyo in laysdhinac jiifsado ayaysan dhicin aqalka dhinac ka jiifso jiifka uga haajir baa lagugu yidhi laguma dhihin orodoo hoteello iyo loojaj meelaha ka kirayso laakiin waxaa lagugu yidhi aqalka hor dhinac ka seexo hadday intaa diiddo waxuu rabbi amray subxaanahu wa tacaala hadday diiddo in marka yani laga haajira ay ku soo fiicnaa diiddo wadribuuhunna ha loo gacan qaado ayuu rabbi odhanayaa gacanqaadka asaga rasuulku waa caddeeyey waa darbi aan jirkeeda dhibaato u geysanaynin waxaana la tusayaa inay noqotay qof kayru mas-uul ah oo qaymo dhacday oo sida ilmaha in loo garaaca ay mutaysatay sidaa ayaa la tusayaa arrintaas ayaa la doonayaa in lagu dadaalo oo sidaa lagu sameeyo oo la yidhahdo hadde waa ku kaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay hadday adeecaan oo ay ka soo laabtaan xumaantii dariiq aad ku xujaysataan ood ku caydaan ha doondooninina marka la leeyahay darbi ha lagu sameeyo ma aha in lagu tunto qofka waxaa laga sheekaynayaa waydaal yar oo aan dhib lahayn waxaana laga sheekaynayaa inaan lagu xadgudbin waana markii loo arka baa la yidhi inay maslaxa ku jirto in wax ku imaanayaan maslaxada waxa weeyaan mar kasta shareecada waxaad arkaysaa inay qodobaqaaday tillaabooyina waani aqalkeed dhinac ka jiifso macnaha marka lays odhanayo qofkaan canaanta waxbay ku taraysaa weeye laakiin haddii loo arkayo inay uga sii darayso ba waxaa la isku dayayaa waanada in loo badiyo dhinacyo kale laga soo galo taas ayaa lagu dadaalayaa weligaana waxaa lagu dadaalaa hadba shayga aad isleedahay waxbaa ku islaax noqonaya ilaa qofka waxaa lagaa rabaa inaad tijaabisid dabeecaddiisa garanaysid waxa aad u arkaysa in islaax ku jiro oo aan xadgudub qofkaan ugu jirin ayaad la imaanaysaa inanta muslimadda ee lagu yidhi aqalka joog waxaad doontid waa laguu soo qabanayaa oo bannaanka u bixin oo bannaanka u baxday waa daalimad rabbigeed ka fogaanaysa subxaanahu wa tacaala waxayna soo gelaysaa dadkii uu allah u yidhi rasuulkiisii sala allahu alayh wasalam yani wax laga aqbalayaa ma jiraan oo salaadooda madaxa ma dhaafayso haweenta caasiyadda ah oo ninkeeda caasiday ilaa ay raalli garaynayso salaadeedu madaxa ma dhaafayso aqalkaan fadhi suuq baan kaaga soo adeegin waxbaan kuu qabanin meeshaad aadaysa anaa kuu raacin arrinka haddii lagu yidhaahdo waa inay inantaasu sujuudu shukri inta u dhacdo oo rabbigeed ku mahadiso ay tidhaa allow adaa mahadsan oo arrintan i gaarsiiyey maxaa yeelay inaanu waxay sharaf iyo qaymo leedahay haween oo dhan intay aqal ku jirto wuxuuna rasuulku caddeeyey sala allahu alayh wasalam
وحديث صحيح كويل المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان هوانتها عورة أقل كذا مركي كبحنا شيطان بقيب جينية oo jirkeeda qurxinaya oo dadka u ziineynaya marka inta ay naxariista alle gabadhu ugu dhawaan badan tahay waa inta ay aqal bartankii ku jirto oo aysan ka baxayn marka haddii lagu yiraahdo halkaan fadhi oo ha bixin nicmo alla ku siilahay nicmada ugu weyn ayaa gacantaada ku jirta bacda islaam waa nicmadii islaamka ku xigtay oo aad janno alle ku gaarin lahayd maxaa yeelay rag ajaanib ay saarka maydaan dariiqa lagugu buuran maayo gaarin rag kugu jiraan korin maysid faa'iido badan baad gacanta ku haysaa waxaa kugu waajibtay inaad alla ku shukrisid laakiin islaanta sidaa inta la yidhi garan weyday oo iska tagtay dariiqyada aan soo sheegnaa la marin intaa markay wax ku qaada diiddo oo ay wax walba ka soo taagan tahay oo si walba wax loogu sheegay allah subxaanahu wa tacaala ma uusan hore hala furo allah yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq allahu baynahumaa laba qofood oo khayr lagu tuhmayo oo midna reerkeeda yahay midna ninka reerkiisa yahay ama haddaan ku waalayn xataa dad islaama oy ku kalsoon yihiin ayaa la saarayaa islaaxa rabbi waa gaarsiinaya iyo wanaagga haddii ay khayr doonayaan laakiin waxaa la doonaya waxaan idinka rajaynayaa inaad iska kii cafidaan hadalkayga meelaha qaar haddaad u begi kari weysaan waxaa laga yaabaa inay jirto duruuf iyo qadar keentay hadalkayga in meelaha qaar ay bedelaadaan walaalayaal qofka cimrigiisu waa wax yar xayaatada intay nagu jirto xayaato ka xuno ma jirto axadkii rabbigii ka jeestay xayaatadiisa oo alla qayrkii ku mashquulay noloshiisaasna waxaa ka khayr badan nolosha xayawaanka insaanka noloshiisa waxaa ugu khayr badan in qalbigiisa iyo ruuxdiisu nooshahay nebigu wuxuu leeyahay